dowladda waddanka Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso duulimaadyada ka imaanaya 6 dal oo halista faafista cudurka coronavirus ee gudaha dalalkaasi ay aad u sii kordhayso. kadib soo jeedin ka timid wasaaradda caafimaadka ee waddanka Turkiga ayaa wasaaradda amuraha guduhu waxay sheegtay inay qaadayso xayiraado la saarayo dhammaan duulimaadyada ka imaanaya 6 dal oo halista cudurkaasi uu aad ugu faafayo. wadamada kale ah Bangladesh, Brazil, South Africa, Hindiya, Nepal iyo Sri Lanka ayaa la joojiyay duulimaadyadii ka imaanayay waxaana Turkigu ay sheegeen in awaamirtaasi ay bilaabanayso 1 July ilaa amar dambe. xogaha ayaa muujinaya in dalalkaasi ay ka jirto nooc hor leh oo halista cudurka corona waxaana wasaaradda caafimaadka ee Turkigu ay sheegtay in khatarahaasi la xiriira faafista cudurka cusub uu keenayo in duulimaadyada ka imaanaya dalalkaasi la hakiyo. dowladda Turkiga waxay sheegtay sidoo kale in dalal kale oo iyagana halis hor leh ay ka soo baxayso ay isha ku hayaan lana socdaan habka kicitaanka iyo kororka cudurkaasi ee saameynta leh.